السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأم النجيب channelkani waa uma najiib asxaabtaydii hore intaba aad iyo aad baan idin salaamayaa ayaamahan waan iska yaraa mashquulsanaa because safarkii aan la wadaagay ayaan ayaamahan iibinayey oo aan dejinayey markaa sidaa daraaddeed ayaan ku yara mashquulsanaa marka waxyaalahaasaan iskaga yara mashquulsanaa walaalayaal waxaan jeclaaday in aan arrin yaran arkay inaan inigla wadaago arrintan beryahan ka socotay waddanka Chinaha xanuunkan ilaahay hay naga samata saaree baan waxaan arkay wiish ama lifti saad u taqaaniin nin gacantiisa candhuuf ku tufaya oo marinaya si ay u faafto oo dadku liftiga u taataabtaan ayuu xanuunka u fidinayaa marka ilaahay naga samata saaro innaga iyo intii ummadda islaamaba allahay naga samata saaro iyo ummadaynu la noolnahay gaal iyo islaam waxaynu nahayba alla subxaana watacaala ilaahay naga samata saaro waxa weeye ummaddan waa la noolnahay dhibta ku dhacdaa waa dhib ina saameyn karta marka ilaahay iyagana ha ka samata saaro inagana ilaahay naga samata saaro marka walaalayaal ilaahay naguma keeno ingiriiskan hadda arkay 3 qof 4 qof laleeyahay wuu ku dhacay xanuunkaas ayaan ka arkayey marka ilaahay subxaana watacaala ummadda allah ha ka samata saaro waxa weeye inagu de waddan baynu joognaa qofkii ilaahay ugu talagalo waa dhimanayaa laakiin ilaahay waxaanu ka baryaynaa wadanadeena islaamka oo welina ay ka mid tahay Soomaaliya in ilaahay xanuunada ay naga gaarsiin baynu ilaahay ka baryaynaa because waxa weeye de ilaahay baa wax badbaadiya laakiin iyagu dhakhtarra iyo waddan iyo waxa isku badbaadiyaan bay haystaan laakiin inagu dad iska qaxuntiyo iska rafaadsan baynu nahay ilaahay nooma geeyo innaga iyo inta islaamaba allahay naga xijaabo baanu ilaahay ka baryaynaa taas waa taa marka walaalayaal waxaan iska jeclaystay inaanu wara sheekaysano in aan barnaamijyadaas oo kale isdhaafsiisano waxa ka iman kara oo dhibaato ah wax taxadir kasta aynu samayno ayaan iska jeclaaday iska mashquulkayga iska yaraa badan aniga marka maadaama aan ayaamahan ay naga yara maqnaa waxaan isiri asxaabtii dhiirigelintooda iyo farxadooda ayaad wax ku tahay bal hadda farxad la wadaag wacdigelina sii oo aad tiraahdid walaalayaal ilaahay baa wax difaacee in isdifaacna wiishashka iska ilaaliya liftiga iyo wiish waa isku mide calaashaan qofba siduu u yaqaane liftiga iska ilaaliya markaad raacisaan taxadar badan sameeya ilaahay naguma keena inaga inta islaamabe waxyaalahaas ayaan iska jeclaaday walaalayaal marka walaalayaal dee safarkiina waan keenay alxamdulilah arrimaheedina sida bay noogu kala socdaan dee maasha allah anigu waan iska faraxsanay mar walba ininkuna saan u faraxsanay inaad u faraxsantihiin baan jeclahay sida aanu de qulubteedii qalbigaygu ayaad ii dhiirigelinaysaan ayaan jeclay ininkana inaan ii dhiirigeliyo oo irado walaalayaal waxaa saasaa jirta ama saasaa socota dee aan isku duubnaano saasaan iska jeclaaday marka walaalayaal waxa weeye sheekadaas uun baan rabayna in la wadaago de insha allah caruuraheena iyo dee dhibtan hadda laleeyahay faransiiska caruur isku tooreeyeyna ilaahay subxaana watacaala xalfad bay isku arkeen baa layidhi caruur soomaaliyeed ba isku tooreeyeysay baan maqlayay faransiiska xalfaday kasoo qayb galeen oo gabdho fanaaniin dhigayeen de arrintaasna hadday jirto ilaahay subxaana watacaala caruurteena ilaahay noo kala badbaadiyo dhib iyo qaxar waddankeeni baynu uga soo qaxnay waddankeeni baynu uga nimid waddanadan qaxoonti baynu ku nahay ninna yaa meelaan hoy lagaa odhaneen ayaa qurux badan oo aynu xamili weynay basaynu qurbayso soo daadinay qurbihii baynu haddana isku tooreeyeenaynaa qurbihii baynu haddana isku dhibaateynaynaa caruurteena inaynu wacdigelin u samayno oo ilaahayga subxaana watacaala waxyaalaha tooreydan la qaadanayo iyo waxyaalahan ka wacdigelino ayaa ila qurux badan marka mar walba waxaan jeclahay hooyo kasta aabba kasta inuu wax wanaagsan aynu isfarno ayaan jeclahay wallaahi anigu mar walba sida aan calaashaan jecelahay waxaad naftaada la jeceshay baa walaalkaana lala jeclaadaa anigu waxaan nafteyda la jecelahay inaan mar walba iska faraxsanaado mar walba isdhiirigeliyo ayaan isla jecelahay ininkana saasoo kale aynu la jecelahay marka walaalayaal hadalka waynu ku badiyey aniga ininka la-aantiin waxba ma noqon karo farxaddaad isoo dhiirigelisaan iyo akhbaarkaad iisoo dirtaan ayaan wax ku ahay
oo ku dhaqaaqa oo yidhahdo asxaabtaada maanta arrin qurux badan la wadaag arrin farxad leh la wadaag waan iska faraxsanahay mar walba because farxad iga maqan ma jirto alxamdulilah waxaan ku joognaa meeshan waxaan ku joogaa odaygayga saygayga iyo caruurtaydu labaduba way ii faraxsan yihiin anna waan faraxsanahay marka dee wax kale iga maqan ma jirto waalidkay iyo dadkayguna dee way ii faraxsan yihiin soomaaliga ila noolla oo waddanka igula noolla dee farxaddaasoo kale aan rajaynayaa gurigiisa marka gabdhaha walaalada iyo wiilasha walaalada intaba ya farxadda aan ku noolahay oo kale inay igula noolaadaan ayaan jeclahay quruxdan ku noolahay oo kale inay igula noolaadaan baan ku jeclahay marka walaalayaal wuu idin soo dhaweynayaa waa umanajiib hana moogaan hana ka maqnaan dukaankeedii yaraa waa kana mar walba waxayna wacdigeliya iyo wax dee aad iibsataan oo qurux badan baan mar walba inay soo bandhigaa ya safarkii ugu dambeeyey waa inila wadaagay markaan sii socday iyo markaan soo socday iyo wixii aan keenayba intaba waa inila wadaagay ma garateen markaa walaalayaal dee intaa yar baa ininii wadayey asxaabtaydii hore asxaabtayda dambe waa umanajiib la-aantiin waa abaar anigu waxaan wax ku ahay oo qurux ku leeyahay oo wanaag ku leeyahay waa asxaabtayda ya si aad ii soo dhaweyseen ayaan mar walba jeclahay qosol iyo farxad inayna inagu soo dhaweeyo marka wayni salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa asxaabtaydii dambe asxaabtaydii hore intaba aad iyo aad baan idin salaamayaa ya qalbi furan iyo gacmo furan ayaan inagu soo dhaweynayaa wayni salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu